waxaa maanta dugsiyada waxbarashada ee magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle si rasmi ah kaga bilowday imtixaanka sanad dugsiyeedka koowaad ee 2016-2017 kaasi oo ay ka qayb galeen ardayda wax ka barata guud ahaan dugsiyada ku yaala magaalada Jowhar. waxaan socdaal aynu ku marnay qaybaha kala duwan ee waxbarashada ee magaalada Jowhar halkaasi oo aan kula kulannay ardayda iyo waliba macallimiinta barayaasha ka ah halkaasi iyaga oo nooga warbixiyay imtixaanaadka iyo natiijooyinka ay ka rajeynayaan sida imtixaanku ay doonayaan inuu ku soo gabagaboobo. aadan afrax waxa uu ka mid yahay macallimiinta dugsiga hoose iyo dhexe sare horseed waxa uuna la hadlay telefishinka bulsho asagoo ka hadlay imtixaanka cadadka ardayda u soo xaadirtay iyo waliba natiijooyinka ardayda maadada maanta ay u fariisteen imtixaanka ardayda. bismillaahir rahmaanir rahiim mahadaba iskale maanta oo ah taariikhdu 10 bisha 12aad 2016 waxaan qaadanay imtixaankii teeramka koowaad ee 2016-2017 marka imtixaanka wuxuu noogu bilowday si habsami ah. ardaydii ayaa hadda fasalada noo wada gashay waxaana noogu soo horeeyay maadada tarbiyada maadaama aan nahay ummad islaam ah sidaa daraadeed maadada tarbiyada ayaa noogu soo horeysay. after breakna waxaan gali doonaa maadada sayniska ayaan waxaan sida u galayno qoomkeena waa si wanaagay maadada noo soo horeysay waa maadada tarbiyada. haddii aan guda galo aqoonta dugsiga hoose dhexe horseed maasha allah waxaan filaynaa kaalinteeda insha allah. maadada u soo horeyso tarbiyada islaamiga aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. waxaan rajeynayaa boqolkiiba inaan gaaro kaalinta koow inaan gaaro. dugsiga hoose dhexe ee Buulabeley waxa uu ka mid yahay goobaha wax lagu bartay ee ku yaala magaalada Jowhar waxaana wax ka barto arday kumanaan gaaraya kuwaasi oo waxbarashadoodu ay ku saleysan tahay mashruuca aada dugsiyada amaba go to school. waxaana halkaasi kula kulmay maamulaha iskuulkaasi macallin Cabdiraxmaan Suleymaan waxa uu nala hadlay telefishinka bulsho isagoo ka hadlay imtixaanka iyo maadada ardaydu ay u fadhiyaan isla markaasina waxa uu kula dardaarmay ardaydu in ay ku dadaalaan inay natiijooyin muuqda ay ka kaystaan tijaabada imtixaanku ee ay u fariisteen. imtixaankan wuxuu bilaabay maanta sabtiga wuxuuna dhamaanaa maalinta isniinta maanta 3 maado la qaadaa biri axadina 2 maado biri dambeena waxa la qaadaa 2 maado. imtixaanka diyaartiisa waxa soo bilaabay isniinta amsa arbacada ilaa iyo maadada markaan kadibna biri soo laabay imtixaanka maanta oo fadhino waxaan rajeynayaa sida ay garaan noqon natiijada kaalinta koowaad aan galo xabkiisa iyo aad ay u wanaagsan. bal ka waran imtixaanku ma fudud yahay mise adag yahay? imtixaanku waa iska dhexdhexaad oo fudeedna ma la dhihi karo waa waxaan soo marnay لكن دال إلا وعلى فضيت يعني وحنا رجينا إن كان كواد قالوا عن قوة عدفتها أحمد معلو عدفتها زكي تي في قبل شو جوار.